muuqaal u baahiyey afhayeenka ciidanka qalabka sida ee Masar ayaa noqday mid si weyn looga falceliyay gudaha iyo dibadda kadib markii lagu arkay taliyaha guud ee ciidamada Masar General Ahmed Khalifa oo booqasho ku tagay mid ka mid ah macadyada military ee dalkaas halkaas oo si lama filaan loogu soo bandhigay qoraal ku jiray mawaadiicda ama ciwaanada casharada macadkaasi ku tababaraya ciidamada ciwaankaasi wuxuu dhignaa mabaadiida guud ee howlgallada weerarada ee Israa'iil inkastoo muuqaalkaasi la baahiyey si caadi ah oo lagu muujinayo booqashada rasmiga ee taliyuhu ku tagay xaruntaas haddana dhab ahaantii wuxuu noqday fariin istaraatiiji oo muujisay dhabbaha uu qaadanayo ciidanka Masar isla markaana su'aalo badan dhalinaysa xilligan oo gobolka bariga dhexe uu ku jiro marxalad aad xasaasi u ah falcelinta dadka iyo falanqayaasha amniga ayaa si toos ah u tilmaamay in muuqaalkani uusan ku koobnayn tababar ama kormeer caadi ah balse uu xambaarsanaa fariin dulmaasideed iyo mid ciidanba waxaa laga dheehan karaa in Masar aysan weligeed ilowsanayn khatarta Israa'iil ku haysa xadka iyo deegaankeeda xitaa haddii ay horay u wada galeen heshiis nabadeed oo la siixay sanadkii 1979 taasi waxay caddeyn u tahay in dawlad kastoo Masar timaada ay ku khasban tahay inay ilaaliso diyaargarowga military oo joogta si aysan u noqon mid la burburiyo oo looga guulaysto dagaal qarxa xil kasta muuqaalkan cusub ayaa si toos ah xasuusta dadka dib ugu celiyay dhacdooyinkii hore oo la mid ahaa markii saraakiil iyo arday ciidan oo Masar lagu arkay tababarro lagu bartilmaameysanayo hubka iyo gaadiidka dagaal ee Israa'iil waxaa xusid mudan in madaxweynaha Masar Cabdifatax al-Siisi uu horay u booqday macad military halkaas oo ardada ay ku tababaranayeen sida loo burburiyo taangiga Israa'iil ee Markafa iyo diyaaradaha casriga ee F-35 waxaasoo dhan waxay ahaayeen fariimo si caadi ah ugu jeeday Israa'iil iyo sidoo kale bulshada gudaha Masar si loo muujiyo ciidanka Masar inay yihiin weli kuwa feejigan sida awgeed muuqaal kasta oo noocan wuxuu xambaarsan yahay fariin qoto dheer oo ka badan inta muuqata haddaba maxaa hadda keenaya Masar inay ku soo aadiso soo bandhigista muuqaalkan maxayse soo bandhigistan Masar u samaynaysaa kadib markii la duqeeyo Dooxa warbixintan ayaanu arrintaasi ku eegaynaa waa Arbaco 17 bisha Sebtembar sanadka 2025 magaciiguna waa Imaan Jaamac ma raadinaysaa guri casri ah oo si degdeg ah uga iibsatay Nairobi Kenya ma doonaysaa dabaq sare oo leh muuqaal cajiib ah iyo adeegyo dhammaystiran ama waxaad xiisaynaysaa fiilo deegaan waxa ku yimid waqtigii aad riyadaada xaqiijin lahayd shirkadda Raad Property ayaa ku haysa xal kasta dhismaha iyo guryaha iibka oo tayo sare leh ku habboon qoysaska ganacsatada iyo maalgashadayaasha isla hadda kala xiriir shirkadda Raad Property taleefanada iyo emailka shaashada ka muuqda isbedelada ka dhacaya bariga dhexe iyo weerarkii ka dhacay toddobaadkii hore magaalada Dooxa halkaas oo diyaaradaha Israa'iil ay bombooyin ku garaaceen dhismeel ay ku sugnaayeen hogaamiyaal ka tirsan ururka Xamaas waxa uu dhaliyay bannaankana uu keenay suurtagalnimada inay Israa'iil isku dayi doonto goob kasta oo bariga dhexe iyo dhul kasta oo carbeed inay ku beegsato Xamaas Netanyahu oo maalin ka hor su'aal laga weydiiyey in kadib Dooxa ay jiri karto mar kale in Israa'iil ku weerarto hogaamiyaasha Xamaas dalal kale wuxuu sheegay in taas aan meesha laga saari doonin isla markaana ay ku beegsan doonaan goob kasta tan waxaa ka horreeyay warbixin ay soo bandhigtay warbaahinta Carabta oo sheegay in ka hor weerarka Dooxa ay Israa'iil qorsheynaysay in ay weeraro ay ku beegsato hogaamiyaasha Xamaas ka fulisay gudaha Masar balse sirdoonka Masar ayaa la sheegay arrintaasi inay ka war heleen isla markaana digniin ay la wadaageen Israa'iil una sheegeen haddii ay Israa'iil isku daydo fulinta howlgallo ka dhaca gudaha Masar taasi inay ka wajihi doonto cawaaqib xun oo dagaal ah isla markaana Masar si dhaqso leh uga jawaabayso balse ugu dambeyntii toddobaadka hore si lama filaan ah Israa'iil waxay u daqaysay Dooxa waxaana la isweydiiyey weerarka kadib xaggee ku xigta kadib waxaa la arkay dhaqdhaqaaq ka soconaya Masarna waxay u muuqataa mid isku diyaarinaysa suurtagalnimada wax kasta oo ka imaan kara dhinaca Israa'iil su'aashu waxay tahay maxay ka dhigan tahay in muuqaal noocan ah xilligan la baahiyo jawaabta waxaa laga heli karaa xaaladda gobolka oo dhan bariga dhexe wuxuu galay marxalad dagaal oo isdaba jooga iyo weeraro Israa'iil waxay si arxan darro ah u weeraraysaa Gaza waxayna si aan caadi ahayn uga fidisay weeraradeeda dhanka dibadda iyadoo xataa beegsatay Dooxa kana dhigtay goobtii ugu horreysay ee caasimadaha khaliijka oo taariikhdoo dhan ay Israa'iil ay beegsato Masar oo daris la Gaza waa dal si toos ah u dareemaya halista dagaal oo ballaaran waxay sidoo kale leedahay doorka ugu weyn ee dhexdhexaadinta colaadda Falastiin iyo Israa'iil laakiin
iyadoo xaaladdu ka sii darayso waxaa muuqata Masar inay rabto inay caddayso inay diyaar u tahay dagaal haddii ay xaaladdu ka gudubto heerka wadahadalka. sidaa daraaddeed muuqaal noocan oo kale wuxuu u shaqaynayaa laba dhinac. ku dirso baysi lacagahaaga oo si degdeg ah u helaan ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo ugu dhacaysa telefoonkooda gacanta sida EVC, SAD, Sahal, MTN iyo M-Pesa. kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. gudaha waxaa shacabka Masar la siinayaa kalsooni ah in ciidanka Masar ay feejigan yihiin, halka dibaddana Israa'iil iyo reer galbeedka loo muujinayo Masar inaysan ku tiirsanayn heshiisyo nabadeed oo keliya, balse ay doonayso inay isdifaacdo kana hortagto isku day kastoo weerar. afhayeenka ciidamada Masar ayaa sharaxay in Jenaraal Axmed Khalifa uu booqasho ku tagay si ula socdo nidaamka waxbarasho iyo tababar ee macadyada military. wuxuu sheegay in taliyuhu la kulmay saraakiil isla markaana uu dhageystay sharaxaad ku saabsan sida loo casriyeynayo nidaamka waxbarashada military iyo sida loo waafajinayo teknoolojiyadda cusub ee la xiriirta xaaladaha dagaalka casriga ah. inkastoo sharaxaaddaasi ahayd mid rasmi ah oo la mida qoraalada caadiga ee ciidamada, haddana waxaa muuqaalka la soo bandhigay ku jiray fariin qoto dheer. waxaa cad in Masar ay rabto inay dunidu u muujiso inay si dhaba u darsiiso xaaladaha iyo nidaamyada Israa'iil si ay ugu diyaargarowdo dagaal mustaqbalka ah. falanqeeyaasha military iyo istaraatiijiyadeed ayaa tilmaamay in muuqaalkaasi uu muujinayo laba qodob oo muhiima. marka hore, Masar waxay weli u aragtaa Israa'iil cadow taariikhi oo khasab tahay inay si joogtaa loo barto loona daraaseeyo xeeladaheeda dagaal, xitaa haddii ay muuqato in labada dhinac ay ku wada socdaan xiriir nabadeed. marka labaad, ciidanka Masar waxay si qoto dheer ugu tababaranayaan siday ula qabsan lahaayeen xaalad kasta oo dagaal mustaqbalka dhalan karta, iyadoo la adeegsanayo cilmi baaris iyo xog ku saabsan Israa'iil. waxaa halkan ka muuqata in diyaargarowga Masar uu ka badan yahay mid ciidan oo keliya, balse uu yahay mid istaraatiiji ah oo isku daraya dhinacyada siyaasadda, sirdoonka iyo difaaca qaranka. muuqaalka hadda la soo bandhigay ayaa sidoo kale fariin u daraya bulshada caalamka, gaar ahaanna reer galbeedka. Masar waxay muujinaysaa in kastoo ay sii waddo heshiisyo iyo wada shaqayn diblomaasiyadeed, haddana aysan weligeed ka dib dhici doonin ilaalinta amniga qarankeeda. Israa'iil waxaa loo diray fariin cad oo inay Masar aysan ilowsanayn dagaaladii hore, ayna weli baranayso xeeladaha iyo hubka ay adeegsan karto haddii xaalad dagaal oo cusub ay abuuranto. ugu dambayntii, muuqaalkuu baahiyey afhayeenka ciidanka Masar wuxuu si cad uga gudbay booqasho caadi ah oo tababar. wuxuu isu beddelay fariin istaraatiiji ah oo adeegaysa dhowr ujeeddo. wuxuu shacabka Masar siiyey kalsooni ah in ciidankooda weli diyaar ay yihiin. wuxuu Israa'iil tusay in khatarta dagaalka weli ay miiska saaran tahay. wuxuuna bulshada caalamka xasuusiyey in heshiisyada nabadeed aysan macnaheedu ahayn in laga tanaasulo difaac. muuqaal yar oo keliya ayaa isu beddelay cashar weyn oo ku saabsan sida siyaasadda, militariga iyo warbaahinta loogu adeegsado fariimo qarsoon oo istaraatiiji ah. Masar waxay muujisay inay weli tahay quwad aan indhaha ka laaban karin halista Israa'iil iyo saamaynta ay ku leedahay gobolka, isla markaana ay weli u taagan tahay difaaca amniga qarankeeda xilli bariga dhexe uu galay marxalad aad u nugul oo go'aaminaysa mustaqbalka jiilal badan.